We the best. Another one. تتعدى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا محمد حسن يوتيوب كداوني سانوا another one. تتعدى meel walba dunida ka joogtaan iyo si walba maqalkayga iyo muuqaalkayga soo gaari doona niyad samiyi kalgacal ugu soo dhawaada waadna ku mahadsantihiin daawashada fiidiyodan soo geliyo fadlan haddii aad ku cusubtaan waxaan ka codsanayaa daawade inaad subscribe dhahdo channelka gambaleelkana furato si ay kuu soo gaaraan muuqaalada ugu dambeeya fiidiyogana like saara laagtu waliba muhiim u tahay channelka waadna ku mahadsantihiin la jiristiina iyo la joogistiina sida caadada iyo dhaqanka ahaydna kusoo dhawaada muuqaal cusub muuqaalkan caawa wuxuu ku saabsan yahay Queen Xafsa Cadnaan model iyo Dirisle Abdi Yaaqaldan yaa saxsan barnaamijka ayaa caawa ku falanqeyn doona runtii waa ogeedeen ayaan dhaweyd ayay ahayd markii badbaado uu soo bandhigay arin qusiisay Queen Xafsa iyo Cadnaan model arinta markii ay soo shacbaxday waxa ka falceliyay dhammaan inta baraha bulshada ugu muhiimsan ama ugu caansan Dirisle Abdi falcelintiisa ayaa waxaa dood ka keentay Queen Xafsa iyo Cadnaan model marka Queen Xafsa iyo Dirisle iyo Cadnaan model arintooda horta yaa mas'uuliyadeeda qaaday arintooda horta waxaa mas'uuliyadeeda qaadayo dooda meesha ka dhalatayna dambigeeda yeelanaya waa badbaado oo markii hore arintaa furay qofkii furay ayayna hadhoodii ku laaban doontaa laakiin hadda waxaan fiirin doonaa miisaami doonaa Queen Xafsa Dirisle Abdi iyo Cadnaan model ereyada ay isdhaafsadeen yaa saxsan yaa qaldan taas ayaan ku falanqeyn doonaa marka waxaan rabaa inaad ila dhegaysataan maqalkan oo ah Queen Xafsa video ko reaction soo bixisay video iskii ka soo horeey aan ka hadlay soo marka adiga markuu soo bixiyay reaction ina meel aan ku jirin aan soo fadhiisato aan dhahdo Xafsa ku dhagan waad ku qaldantay because anigu ma dhigin video-gan Cadnaan kulma jiro bal anigiisana wuxuu dhigay macnaha waxay leedahay Dirisle macnaha qoraalka title-ka ayuu wuxuu ku soo qortay Cadnaan iyo Xafsa waxay weli ku dhagan yihiin badbaado marka Queen Xafsa marka waxay leedahay aniga kuma dhagani kumana jirin fiidiyooga oo Cadnaan ugu hadlayay badbaado marka aniga ina magacayga meesha ku soo dartid ma ahayn okay dadka ina dheertay marka dhayso dadka meeraysan indhahooda gaarina toosh ku qabanayna macnaha Dirisle wuxuu leeyahay meel aysan dadka arkaynin adiga ha tilmaamin macnaha wuxuu la hadlaa saaxiibkiisa Maxamed Saacid uu leeyahay dadka meelay arkaynin adiga farta ku fiiqin Queen waxay leedahay adiga meesha ay dadka arkaynin ma arkaysaa kadib channelkayga Abdi ku soo dhawaadu leeyahay kadibna dubeynta macnaha burusoo haystaa Dirisle buruskaasoo marka wuxuu leeyahay maanta waa lis dubeynaa sheekadii dabacsaraya aan ku sii socono wallaahi arintan way sii khasmoosaa dad oo aan isla hadli jirin ayay arintan soo gelisay shaqada dubeynta adiga wax ku dhiibay hawde meel hadii ay wax ku xumaad sida loo dubeeyo isku dhignaa waxa ku soo biiray wiil kale aku sheeg horta Cadnaan sababta ugu soo biiray because waxa way Cadnaan asagoo video wala ugu dhaxalay ma aan qof ada amal shaqo la'aan meel loo dirsin soo dhaxgalay Cadnaan video wala ugu dhaga hadlay oo asaga ugu badnaa dadka meesha ugu dambeysay laga hadlay macnaha Cadnaan macnaha meesha ku soo biiriyo leeyahay Dirisle Abdi Queen Xafsana waxay leedahay sidaada oo kale Cadnaan iskama uusan soo galin fiidiyooga ayaa meesha looga hadlayay
magaciisana lagu isticmaalo marka sidaas ayuuna meesha usoo galay okay ama qof u yeelinayo maahan okay wuxuu leeyahay kan mashaqaba ama waa wixii asaga u maleeyay inay saxanta ama sida wax u arkay uu ka hadlay kala sax marka jawaabta erayada salaad kan loo yaan waa erayada macnaan video ku soo qoray because asbu waa la galay adiga waa aragtay sheekay sida adiga aragsan qof kasta inuu arka qasab maahan macnaha عدنان موديل ماشي wuxuu kusoo qortay title-ka kan sheekh miya mise sheekh maahan Dirisle marka wuxuu leeyahay ha ana jawaabta ku siinayo waa sheekh horta runtii sheekh waa kelmad weyn oo qof walba oo daaci ah uu xambaarsado sheekhna waxa ah qofka diinka ilaahay si daacad ay ku jirto oo ku jirto nidaamkii uu ilaahay u soo dejiyay ummadiisa u gaarsiiyo ama u baahiyo markii aad adiga diin faafinaysidna waxaa loo baahan yahay inaad kullu caam dadka dhan inaad gaarsiisid oo fariintaada aad kusoo koobtid ilaahay ha laga cabsado laakiin diinta meelna kagama jirto in qof gaar ama magac gaar ama shakhsi gaar inaad usoo fariisato aad tiraahdo tiiti wuu qaldan yahay tiiti waa saan diintu sidaas ma aan nasteexada diintu waa in aad u sheegtid qofka sida ilaahay u soo dejiyay iyo aayadihiisa uu ku cadeeyay iyo xadiisyada nabi maxamed naxariis nabadgelyo korkiisaas ay ka soo aroortay taas waxaa la dhihi karaa waano iyo wacdi laakiin inaad qof personal attack ahaan ku sameyso oo aad tiraahdo ninkaaga hore kama seeraysaa ninkaaga hore wuu tashtinaa uu guursaday sidaa wadaad dad ugu wacdinaya ma jirto marka sidaa darteed ninkan sheekhnimada lifti ha ka qaato ummadda uu ku waalay sheekh hebel ayne yaa waxaan leeyahay ninkan sheekh maaha ee sheekh ka raadsada sheekh ma dhihi karaa oo because qalad ayuu ka galay oo waxyaabo badan oo cadnaan leh ayuu meesha kusoo qaatay like wuxuu ka hadlay guurkiisa hore noloshiisa hore qofka noloshiisa ku jiro shaqadaasna shaqo loo dirsada ma ahayn ninka kasoo hadlay waa taqaanin idinkoo dhan dhaafileyna cabaar because dadka adiga haddii aad mar lagaa qaldanaa aad dhahday disleegu saar ay saareen caqligaaga yariiska kuma saarayaan video qof aan disleegu soo saara who are you maxaad tahay markaa disleeg soo saara excuse me bro disleeg ada afkaaga laguma saaro like afkaaga laguma helo aniga lamid nala tahay runtii macnaha Dirisle wuxuu yiri dadka waxay u maleeyaan inaan dhahay ama dadka aan ku iftiimiyo macnaha videoga cadnaan wuxuu fiiriyay oo macnaha badbaado uga hadlayay inta like la saaray inta dislike la saaray marka wuxuu yiri 900 oo dislike la saaray lagtuna 4000 waay marka laakiin aniga dadka qaar waxay u maleynayaan inaan dadka u tusinayaan leeyahay dislike la saaro
haddaba aniga ma dhihin dislike hala saaro ninkaa haddana hoos wuxuu ku leeyahay oo hala saaro waa ogtihiin horta Dirisle Abdi wuxuu leeyahay taageerayaal daacad u ah oo weliba hal family iyo hal gobol iyo hal dad ka soo jeedo dadka waqooyiga degan iyo dhinacan jigjiga aba ugu badnaadeen dadka degan ee gobolka la yiraahdo Togdheer ee magaaladii madaxdiisa Burco dadka meesha degan waa dad Dirisle aad u taageero meesha aad u dhaqana aad u aada oo u bartilmaameedsada hadda koor rashka boy iyo asiga ayaa xoogaa xurguf dhaxmartay waa ogeedeen rashka boy subscribe badanaa lagala laabtay oo ilaa iyo 2,000 gaaraysa dislike badanna waa la saaray marka waa nin ku tashanayo hal beel oo meel degan oo la yiraahdo reer waqooyi oo inta badan u adeegsado asiga aadna awaamiirtiisa u qaata oo taageero ama xagjirnimo si xagjirnimo u qaata waa dadka Dirisle Abdi u sahlay in 4 jeer uu noqdo YouTube play buttonka inuu helo waa dadka inta badan ku saaciday maadaama uu ogaaday asigaba inuu leeyahay dad sidaas daacad uga ah ayuu furtay ilaa 4 janal oo dadka qaar ay dhib ku tahay laakiin asiga wax dhib kuma aha ileen waa qof ay fiirsanayaan magaalooyin dhan oo ku yaala waqooyiga Soomaaliya marka sidaas darteed ayuu awoodda ilaa heerkaas la eg uu isku biday oo inuu yiraahdo unlike hala saaro oo dislike hala dhaho ama subscribe ka hala laabto awooddaas waxaa u sahlay dadka meesha degan oo aan tilmaamay weliba gaar ahaan magaalada Burco gobolka Togdheer waa dadka ugu badan ee Dirisle aad ugu adeega ama ugu adeegsado dadka uu asiga markaa cadowtinimada ay kala dhaxayso runtii Dirisle waxa uu caawo oo kaga qaldanaa dadkan waxay ahayd mar uu yiri sheekh macnaa Cadnaan wuxuu yiri waxay ahayd wadaadkaas inuu soo waco haddii wadaadnimadiisu sax tahay uu nala hadlo oo ileen telefoonadiinu yaqaanaa meelaana laga soo xiriiro yaqaanaa inuuna soo raadiyay laakiin Dirisle wuxuu yiri sheekh kuma soo raadinayo ileen sheekh shaqadiisa ma aha inuu telefoonada soo diro kadib uu ku waaniyo sheekhu shaqadiisu waxay tahay in uu dadka wax u sheego okay sheekha dad inuu wax u sheego waaye laakiin sheekh Mustafa sheekh إبراهيم عيسى الشيخ حسين جبوتي ويسو استاغان وحي يراهدان اتقوا الله إلهي هلاغا عبسدو لكن ما دهان اتقوا الله تي تعدي ما دهان سي عام أو جود أو بلشو دن أو مسلمين أو ليراهد الصومالية أي فرينتود قدبيان دادكا مركاسي واندا وصاحبك وعقلي وصاحبكنا ويقعتان لكن خوف برسونالي أتاك وفاميلي kala tagay iyo waxyaalahaasi meesha keenay ma ahan waano iyo wacdi marka Dirisle Abdi inta uu ku khaldan yahay sida ay la tahay laakiin arintan markasto waxay ku biishuwanaysaa badbaado dab ninkii shiday ayaa ku gubanaya la yiri markii hore Dirisle Abdi iyo kuwin Xafsa iyo Cadnaan model caawi inay isqabsadaan aniguna arintood ka soo falceliyo waxaa iskale mas'uuliyadeeda badbaada iskale badbaadayna aabadhe haddii arintan sii qarxado oo reer Togdheer iyo dadkii uu Dirisle dirsanayay ee arintan soo farageliyaan ay weynaato oo Cadnaan model subscribe badan lagala laabto kuwin Xafsa subscribe lagala laabto arintaasi waxay naqanaysaa Dirisle Abdi in ay ku biishuwato hadhowdi badbaado oo fidnada abuuray horta run ahaantii Dirisle Abdi كومنتيو كسو قري كومنتيو كسو بحيي فيديوغان أو حفصو كوين أيو كومنتي كسو بحيي كومنتيغانا كلي وحو أخرنا سيدان Dirisle waa nin xun inaad u jawaabto maynan ahayn walaalqaali fiyuus unbuu kugu raadsadaa uu kusoo qoray waxaa soo qoraayo oo commentigaa soo bixinaayo oo meeshaa idinkaga muuqdo waa Dirisle Abdi Dirisle Abdi nin xun ma ahan xaqiiqda aniga waa Dirisle Abdi iyo kuwin Xafsa waa youtuberada inta badan riyada aan ku arko waaye oo mar walbana aan ku arko inay yihiin dad wanaagsan marka Dirisle Abdi qof xun waa ma dhahay kuwin Xafsana qof wanaagsan waaye sababtoo ah aniga qofka qoriyooda oo riyada la ii tusiyo
inta badan wixii la iigu sheego ayay yihiin dadka inta badan aan arkay Dirisle ka mid ah YouTuber ka keliya oo ugu yaraan 6 jeer 7 jeer aan riyo ku arkay waa Dirisle Abdi kuwin Xafsana last reactionka ugu dambeeyay oo arinta badbaadada maanta ka bixinayay habeen kadib ayaa ayaduna ku riyooday waliba ayadoo martiqaad aad u weyn ii sameysay magaalada ii geysay aad ii soo dhaweysay ayaan ku riyooday marka kuwin Xafsa markaas ayaa la ii sheegay ayadana inay qof wanaagsan tahay soo dhaweynta martigelintana aad ugu fiican marka Dirisle iyo kuwin Xafsa labadiina boo idin wataa waxaa tihiin dadka ugu wanaagsan YouTube-ka maadaama aan riyo idinku arkay wixii aan ku riyoodana weligay waxaan u arki jiray si dhab ah marka waxaa idin leeyahay waa ogahay waxaa hadda colaad gooniya idinkama dhexeyso waa arin social media laiskugu kala kacsado waa arin hadda laga sameeyo oo keliya dhaqaale marka labadiinaba horumaraa idin rajeynaa waxaa tihiin labada qofood ee ugu daacadsan YouTube-ka keep going idin leeyahay kal ilaab tan iyo kulantideena dambena waa walaalkiin Tiita Caddo idin leh sii share gareeyo la wadaaga asxaabtiina tan iyo kulantideena dambena